qaar ka mid ah qurba joogta Gabiley ayaa shahaado sharaf waxa ay ku maamuuseen duqa degmada Gabiley waxaana sheegeen inuu noqday shakhsi waajibaadkii loo igmaday gutay. wariyahayaga Maxamed Wadiin ayaa faafahinta warkaasi Gabiley nooga soo diray. taaliyada dalka Sweden ee ka soo jeeda gobolka Gabiley ee ku bahawday ururka Damal ayaa waxay shahaado sharaf ku maamuuseen duqa degmada cagaaran ee Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi. ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah ururkaasi waxay faahfaahin ka bixiyeen sababaha ay ku siiyeen duqa degmada Gabiley shahaadadan waxaana yiraahdeen annagu ah runtii ururka qurba joogta gobolka Gabiley maamul ahaan markaanu fadhiisanay dhan walba aan ka rognay runtii ayaa waxaan isla garanay runtii inaanu shahaado sharaf aanu guddoonsiino guddoomiyaha degmada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo taasoo la isweydiin karo runtii muxuu kaga mutaystay ururku muddo dheereed buu soo shaqeynayay maayir kala duwan la shaqeeyay oo waqti soo dhisnaa in maanta isaga ay u gartaan laakiin waa urur inta badan shaqadiisu iyo halku dhigiisu yahay in degmadan iyo dadka deegaankan u dhashay ay iyagu wax wada qabsadaan isku tashadaan taladoodii iyo dhaqaalahoodii iyo arrinkoodaba la mideeyo degmadii iyo deegaankii laga yimid lagu celiyo shahaado sharafta ku maamuusan maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqatan Maxamed Amiin anaga deesi toos u noo xukumaayo magaaladiisa baan ku noolahay oo habeen iyo maalinba kula dadka xukumo ka mid nahay guddidayada haday soo nimankan waa guddidayada ka tirsan yihiin guddidayada haday soo abaabushay inay maayirkeeni waxyaalaha badan in la soo qabtay hadaynu qurba joognahay inaan dib ugu celino wax aad baa horta u mahadsantahay guddida Mareykanka joogan iyo kala joogan horta mar leeyba kaalintii qurba joog laga filayay kama na soo bixin waxaan waana ku dhaleelanahay magaalooyinka maanta aad aragteen buuramo kale maanta halkay Hargeysa ku dhow qurba joogeed waa dhistay wax ka qabtay ururkan Damal waxaanu xaxantaynaynaa oo taataabanayna baleenano walaalaha kale xasuusino in gobolka la soo xasuusto gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi soo dhaweeyna runtii deena dalka timaadaan oo gobolkii timaadaan dadkiina soo booqataan si aad iyo aad baan ugu faraxsanahay idina soo dhaweynina horta si guud waajibaad bayna wada saaran waajibaad baa dalkii iyo dadkiiba inaga saaran hadaynu dalka joogno iyo hadaynu dibadda joognaba inaynu ummadeena wax u qabanno nin walba intii awoodiisa anagu markaa mas'uuliyiin ahaan runtii de mas'uuliyadii baanu idin dheernahay anaga waan ugu qasab inaynu waxyaalaha inaga wada dhaxeeya iyo mas'uuliyadda la saaray aanu ka shaqeyno waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadiin warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.